aan ku bilownay Golaha Guurtida Somaliland ayaa maanta dood dheer kadib waxa ay ansixiyeen xeerka kufsiga oo ay wax ka beddel ku sameeyeen. xeerkan ayaa waxaa hore u soo meel mariyay Golaha Wakiillada Somaliland. wariyaha magaalada Hargeysa nooga soo warrama Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintan la socday. Barkhad haye aad iyo aad baad u mahadsantahay Jacfar. Golaha Guurtida Somaliland maanta ayuu ansixiyay xeerka kufsiga. xeerkan waxa uu hore uga soo gudbay Golaha Wakiillada oo ansixiyay. waxa xusud mudan in Golaha Guurtida markii xeerkani soo gaadhay ay dood badan dhexdiisa ka dhalisay mudanayaasha qaar ba ku dooday in xeerkan la laalo iyagoo sabab uga dhigayaan xeerkan waafaqsan diinta Islaamka. mudanayaasha qaarkood ba sidoo kale iyana ku dooday in xeerkan loo meel dayo la eego si looga saaro waxyaabaha qaar mudanayaasha qaar diideen. gudoomiyaha Golaha Guurtida waxa uu saaray guddidaasi oo damcay inay soo naaqishaan isla markaana la soo tashadaan cidda khusayso. waxay la soo tashadeen wasaaradda diinta iyo awqaafta, sidoo kale waxay tala weydiiyeen daneeyayaasha ay khusayso arrintani. waxaa xusud mudan in xeerkan muddo markii la isku diidanaa maanta golaha loo hor keenay. Golaha Guurtiduna uu cod aqlabiyada ku ansixiyay. 35 mudane ayaa ansixiyay, 7 mudane way diideen, 9 way ka aamuseen. sidaas uu xeerku ansax ku yahay. waxaa tan ku xiga xeerkani marka dambe wuxuu gudbayaa madaxweynaha Somaliland. madaxweynaha ayaa ansixin doona isla markaana saxiixaya. marka uu faafinta rasmiga ah u gudbo ayuu noqon doonaa xeer dhameystiran. aad baad u mahadsantahay Barkhad.